magaalada Wajaale oo ku taala xadka u dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa si weyn looga dareemaya qabanqaabada kulan halkaasi ku dhaxmari doona madaxweynayaasha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. kulanka labada madaxweyne oo ay ballantu ahayd in uu maanta qabsoomo ayaa baaqday kadib markii ila xogagaal ah ay u sheegeen telefishinka caalamiga SABC inuu ka yimid dhinaca madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. kulanka labada madaxweyne oo noqonaya kii ugu horeeyay ee dhaxmara ayaa lagu wadaa in ay diiradda ku saaraan dhinacyada isdhexgalka labada bulsho, ganacsiga, ammaanka iyo waliba iskaashiga labada xukuumadood. 2 toddobaad ka hor ayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo hadal ka jeediyay magaalada Jigjiga waxa uu sheegay in Soomaaliland ay gabood u noqotay hadhaaga xukuumadii hore ee madaxweynihii xilka ka tegay Cabdi Maxamed Cumar, kuwaas oo falal amni darro ah ka soo maleegaya. hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa warbaahinta u sheegay in aanay waxba ka jirin wararkaasi, taas beddelkeedana ay dib u celiyeen gaadiid iyo hanti kale oo lagala soo baxsaday deegaanka Soomaalida waqtigii kala guurka. si kastaba ahaatee kulanka labada madaxweyne ayaa waxaa inta badan laga rajaynaya in uu hareyn doono iskaashi sal iyo baar ah oo dhexmara Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida oo ay hadda ka socoto isbeddel waaweyn. Soomaaliland ayaa deegaanka Soomaalida la leh xadka ugu dheer ah ee ay la wadaagto dhinaca dalka Itoobiya, waxaana inta badan isaga kala gudba xadkaasi dadka ugu badan iyadoo uu jiro xiriir ganacsi oo u dhaxeeya labada dhinac. hase yeeshee waxaa jiray cabashooyin ku saabsan isu socodka oo waqtigii hore lagu dhibi jiray dadka ka gudba dhinaca Soomaaliland ee u tallaaba dhinaca Itoobiya magaalada Wajaale, gaar ahaan xadka dhinaca Itoobiya, kaas oo aan hadda ahayn sidii hore isla markaana uu ka jiro isbeddel weyn. Najxadan Cunaaye, SABC TV, Hargeysa.